Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabay ku soo dhawaada channelkayga Baladi Official. Maanta waxaan rabaa inaan wax yar tusaale idinkaga soo qaado gabadha qaabka loo dhiso marka gurigeeda la geenayo. Tusaale waxaa inoogu filan inaan ka soo qaadano dhinaca diinta. Gabadha inta aanan gacalkeeda loo gurigeynin waxaa loo baahan yahay in loo dhiso loona naashnaasho dhinaca diinta. Haddii aan ka tusaale qaadano, Saciid ibnu al-Musayib wuxuu ibnu Cabbaas ka wariyay in uu yiri Rasuulka sallallahu calayhi wasallam kolka uu gabadhiisa Faaduma u guurinayay Cali in adeerkeed, wuxuu haweenkii ku yiri, gabadhayda Faaduma waxaan u guurinayaa in adeerkeed Cali, waadnan ogsoon tihiin halkay iga taalo Faadumo, doonaya inaan hadeer u gurigeeyo gabadhiina waa taas dhisa. Kolka inta ay Faadumo tageen bay u geliyeen waxay dahab lahaayeen, kuna udgeen waxay barfuumo lahaayeen. Muddo marka uu ka maqnaa buu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam mar labaad u geliyay haweenkii. Markaas bay ugu baxeen qolkii, waxaase ku hartay gabar la oran jiray Asmaa bintu Cumays radiyallahu canha. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam baa marka uu weydiiyay ahayd, markaas bay tiri, waxaan ahay tii gabadhaada ilaalinaysay una raaciday. Gabadha haweenka la aqal gelinayo waa in ay qof dumar ahi la joogtaa, u adeegtaa, hadday dan yeelato u fulisaa. Markaas buu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u duceeyay, gadaashaada midigtaada bidixdaada ka ilaaliyo shaydaan. Haddaba asxaabay, gabadha haweenka aqalgalka waa in si wanaagsan loo dhiso lana raaciyo gabar malxiisad ah. Tani ayaa tusaale buuxda noogu filan dhanka diinta. Haddii aan tusaale ahaan dardaaranka hooyo soo qaadano, haweenka aqalgalka, gabadha waxaad ka baxday guri aad baratay, una baxday gogol iyo nin aadan garanaynin. U noqo dhul samaha kuu noqdee, u noqo dhab udub dhexaad ha kuu noqdee. Ha isku nabin, yaanan ku nixin, hana ka fogaanin, yaana ku iloobin. Hadduu kuu soo dhawaado u dhawow, gabadheediyay ilaali sankiisa, dhegihiisa iyo indhihiisa. Yaanan kaa urin udug mooye, yaanan kaa maqal wax mac mooye, dhalaal iyo qurux mooye. Gabadheediyay waxaad ku socotaa nolol aanan boos ugu banaaneyn hooyo, aabe iyo walaalo toona. Waxaad noqonaysaa xaas aanan dooneyn inay cidi kula wadaagto, xitaa hadday cidaasi ahaan lahayd kuwii ku dhalay iyo kuwii kula dhashay. Gabadheediyay ninkaaga u noqo naag iyo hooyo labadaba. Gaarsii heer uu aamino cid aan adiga ahayn inaysan jirin. Xusuusnow inuu nin kastu yahay caruur caga weyn, kan ugu yarina uu ka farxinayo. Yaana kaa dareemin murugo iyo in uu guurku ku guursaday awgeed aad reerkaagii ugu soo fogaatay. Ileen isagaba waxa uu ka soo tagay gurigii aabihii iyo reerkiisii. Ha yeeshee farqiga idin dhexeeya adiga iyo asiga waa uu farqiga u dhexeeya nin iyo naag. Waa ay ka beer jilcan tahay, kagana xiiso badan tahay ninka xagga waalidkeeda iyo guriga ay ku dhalatay kuna barbaartay waxna ku baratay. Waa in aad la qabsataa nolosha cusub iyo ninka cusub oo laga bilaabo maanta noqday ninkaaga iyo caruurtaada aabahood. Gabadheediyay waa kaa mustaqbalkaagii, waana kaa guriga aad adiga iyo ninkaaga wada dhisateen. Asxaabay, haddii aad kilibkan yari ka heshay, fadlan subscribe, like iyo asxaabtaadana la share gareey. Waa Baladi Official oo idin leh nolosha cusub ku soo dhawaada. Waa mar waliba waxaad ahmiyadda saartaan in aad dhisataan mustaqbalkiina. Asxaabay, waxaa idin leeyahay nolosha idin wanaagsanaato. Fi amaan Allah.